idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeenu waa bbcsomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa Afrikada bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah. waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh. qodobada barnaamijka ku maqli doontaana waxaa kamid ah Mareykanka oo maanta safaaradiisa Israa'iil u raraya magaalada Qudus. ra'iisul wasaaraha Yuhuudana wuxuu amuurtaasi ka yiri Jerusalem has been the capital of the Jewish people for the past 3,000 years. It will remain our capital for all time. shidaal la'aan ka taagan magaalada Mandera. waxaan aad uga cabanaynaa shidaal la'aanta ka jirta magaalada Mandera ayadoo kaalimo shidaal aad fara badan ay ku yaalaan haddana aanan haysanin wax shidaal la yiraahdo. waxa shidaalka hadda maraya litirkii petroolka ah 140 shilin haddana lama helo. gaarisa biyo la'aan ayaa laga cabanayaa iyadoo roobabkiina ay qulqulayaan. talow siday wax u jiraan dhalinyarada reer Berbere iyo kubadda kolayga siday isku yihiin. wiilkii reer Masar Maxamed Saalax Qaali oo kabihii dahabka ee Premier League ku guuleystay goorma kuugu dambaysay taybka waraaqaha lagu garaaco. waxaan ka shaqaynayaa bahal la yiraahdo teeb waxaan dadka u kala qoraa heshiisyada. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijka saaka ku maqli doontaan. barnaamijka waxaa soo saaray Axmed Mursal Xuseen balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xasan Haybe. mahadsanid Catoosh.